Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Asxaabtayda qaaliga ah kusoo dhawaada janalkiina Somtet. Haddaba maanta waxaan idiin wadaa cashar ku saabsan sida loogu bedelo muuqaal dhegeysi. Macnaha asxaab fara badan ayaa isoo weydiiyey dhanka Gmailka ah. Markaas waxay isoo weydiiyeen sida loogu bedelo muuqaal MP3 ama dhegeysi aad uga dhigan karto. Run ahaantii waxaa jira wadooyin fara badan oo aad uga dhigi karto muuqaaladaada dhegeysi. Mararka qaar barnaamijka moobilkaaga ayaa saas ah. Haddaba maanta waxaan isticmaali doonaa application-ka lagu magacaabo Video Show oo kana hortiina ka muuqda. Application waxyaabo fara badan ayuu qabtaa, waxaana ka mid ah inaad muuqaaladaada u bedelo MP3. Haddaba application-ka ayaan soo furanaynaa. Markaad sidaan usoo furtid application-ka, feeskiisa hore waa sidan. Haddii aad rabto video inaad edit gareyso, edit video ah meeshaas ayaad taabanaysa. Sidoo kale effects ayuu leeyahay, slide show, sawiraan ayaad soo qaadan kartaa. Sidoo kale application-kan super camera ayuu leeyahay. Haddaba markaan rabno inaan video u bedelno MP3, waxaan taabanaynaa qaybta hoose video to audio ah. Okay, marka sidan inuu saaro balas ayaan taabanaynaa meesha new ah. Okay, markaad video ayaan soo raadinaynaa. Okay, videogan ayaan rabnaa inaan u bedelno dhegeysi. Marka hore videoga ayaan fiirinaynaa. لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون وبدا لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. ما شاء الله. marka tigtaas ayaan taabanaynaa saxda ah. Markaan dhammayno calaamada saxda ah meesha kor ayaan taabanaynaa. Kadibna videoga ayuu wuxuu u bedelayaa dhegeysi. Haddaba si fudud ayuu ugu bedelay dhegeysi. Waan fiirinaynaa haddana. لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون وبدا لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. ما شاء الله قرآن aad iyo aad u wanaagsan ayuu ahaa. Marka hadda videoga waxaan ka dhignay audio ama MP3. Haddaba maanta casharkaas ayaan rabay inaan idinla wadaago. Fadlan haddii aad nagu cusub tahay nagu soo biir oo subscribe taabo si aad ula socotid muuqaalada inta soo dhigo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.